muuqaalka laa garay kadib subscribe calaamad guduudan taabo gambarelka furo mahadsanid muuqaalkana siina share garay. Assalaamu calaykum asxaabay, waxaa maantani wadaa muuqaal kaamero laga soo duubay badda hoosteeda gudaheeda. Marka waxaa ku baran marka xayawaano aa ku aragtay beriga aa ku aragtay oo qaab kale aa u aragtay baddana markaa aragtana nooc kale ay yihiin. Hadda meeshan waxaa ku baran diidiin badeedka qaabkan badda waa kana diidiin badeedka noocan u egyahay, midkan kale waxaa waa libaax badeed. marka labadaas nooc waxaa arkayna laba waji kala duwan. libaax badeedka markuu waa kana sida maska camal u egyahay, markuu banaanka joogana waa aragtay waa geed taagan oo weyn badan oo aragtay lafooda. diidiinka ayaa soo hara asagana waxaa waaye waa aragtay ilaahay abuurtiisa la yaabanaan. laba lugood oo hadda afar lugood oo ku socdo ayaa badda waxaa looga dhigay baallo sida shimbirta kale u duulaya. marka muuqaal aad cajiib ah waxaa muuqaalkaas soo duubay quusayaal u dhashay waddanka Ingiriiska oo dadka quusa oo maaragtay badda hoosteeda gala. kuwaas ayaa muuqaal fiican ka soo duubay muuqaalkaas oo adduunka dhan qabsaday. diidiin badeedka hadda waa kana baallo ayaa loo soo bixiyey, laba lugood baallo loo soo bixiyey. halka diidiinka banaanka joogana iyo qaabka iyo waxba iska shabahan qolofka kor saaran. libaax badeedka iyo libaaxa beriga joogana waxba meel iska shabahan, laakiin magaca keliya wataan, laakiin ilaahay abuurtiisa la yaabana maasha Allah. marka muuqaal aad iyo aad u cajiib ah markay oo kaamera laga duubo badda dhexdeeda. noolo walba qalqal walba oo ku nool beriga badda wuu ku nool yahay. marka badda waa aragtay macdan iyo adduun iyo dahab iyo dhul iyo wax walba ayaa is dhexyaala iyo geedo dhir ah ka dhexyaala. waa dhul caadi oo lagu socon karo. marka muuqaalkan aad iyo aad u fiirsado muuqaal aad u cajiib waaye. muuqaal aan jeclahay sida asxaabteyda la soo wadaago.